marwadii hore madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal marwo kaltuun xaaji daahir ayaa sheegtay in xalay gurigeeda dab la qabadsiiyay sidoo warkaasi hargeysa inooga soo diray wariyahana Faisal Yuusuf Kacaan marwo kaltuun xaaji daahir cilmi cigaal oo ka ahayd xaaskii madaxweynihii hore Soomaaliland maxamed xaaji ibraahim cigaal ayaa sheegtay in gurigeega xalay toole dab la qabadsiiyay iyadoo sheegtay in uu gurigeega u soo dhacay isla markaasna ku rusheeyay batrool uuna qabadsiiyay dab haddaba waxay kaltuun ka warramtay sababta keentay dabkan iyo waliba sidii loo xakameeyay iyadoo la hadashay qaar ka mid ah warbaahinta waxay tiri de faahfaahin badan kaama siin karo waayo annaka hurudna baan dabka ku war helnay markaa inaan baa halkan jiifay inankiin baa qayliyay waana soo kacnay markaa dabkii waa lagu guuleystay in la baqtiyo qoladii dabdamiskuna wayna soo gaadheen de saasi sheekada ku bilaabmatay qayladiina humaan ku kacnay markaa xilmaha timeka ee waqtiga dabku around 1 o'clock baad ilaa kowdii habeenimo markaa maxaa kiciyay dabku maanaysan in kastoo aad toonsantiin say wax u jiraan bad maanaysan wallahi dabku wuxuu dab la dhaliyo gacanta lagu dhaliyay markaa nin baa cararay markuu inaan ku soo baxay halkan gidaarka ka dhacay ee muu qabanin xaggii dabku u jeestay laakiin ninkaas sababay dabka qof baa halkan ka cararay oo ka tagay xataa wixii uu dabka ku sameeyay oo CID da qaatay alaabtiina waxa la timid yalla may dhaganin laakiin waanu gaadhnay dabka intaanu guriga wada qabsano qaybtan ku ekaaba la gaadhay inamadii baqtiyeen dabkana waanu afkoraynay leedkana alxamdulillah de waxa weyn aan attempt bay laakiin ahayd de ilaahay baa baqtiyay attempt bay ahayd isku dayga weeyaan waa attempt of murder weeyo kale weeyaan marka waxa weeyaan qofka wax dilay iyo qofka isku day way same qof isiri aqal gub uu bareeray qofkaas inta qof ay aqalka ku nool inuu khaarijiyo uu bareeray waay marka guriga joogtay dadku mise guriga wad ka maqlay ma gurigan ku jirnaa waan hurnayo markaas un baaban anigu seexdan leerka baqtiyay laakiin waan yar gamay marka way jiraan ciidan tuunsan hore noo handiday hore noo soo weeraray hore hub ula baxay ayaa jira laakiin bal gacanta xukuumadda ayaan u dhaafayaa baaritaankaana waan u dhaafayaa war faahfaahsan waan bixin doonaa insha Allah waxa weyn 17 sanadood weeyaan imka inta sheekadaasi taagnayd cid wala Soomaaliland joogtaaba waqti way ka dheergsan tahay cidna imka magacaabi maayo cidna oo aanayn maayo cidna ku canaanan maayo laakiin waxa weeyaan in waxaan u dhaafayaa baaritaanka xukuumadda ay gacanta ku hayso wixii ka soo baxba Faisal Yuusuf Kacaan wararka telefishinka caalamiga Royal Hargeysa